السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ولا لها صوماليات انتي مقلكي موقعي تقانا انتاني اقونين انتبا وحان إذن ولا ليال آدي آد باد أمهد سنتهين وحان إلهي إنو غبريا دمانتين إنو نحفظو ونحفظو وعمر ديري عباد سنصوبا يعافي مسرعا نسيو إرساقد واسعة آمين يا ربي. وحان ربا مانتا إنا كحضلو أرين هايسته maantoo dhan oo taariikhdu tahay 25 October 2022 waxaa haysta meediyaha toogashadii lagu sameeyey wiilkii Allah u naxariistay la oran jiray Caydiid wuxuu ahaa wiil xirnaa sad la socotiinba 5 sano oo u xirnaa dil uu u geystay wiil saraaji oo runtii aad looga naxay markii la dilay wiilkaas markii gacantiisa ilaahay ku sababay inuu dilo wiilkaas waa la qabtay waa la xiray 5 sano waxaa socotay waan ah bal in reerka qalbigooda isbedelo oo ay mag qaataan waxaa loogu baaqay xataa mag double ah oo macnaha 2 jeer magtii wiilkaas la dilay oo 2 jibaaran in maxaan ku iraahdaa la siiyo familkii uu ka dhintay wiilku way diideen waxa loogu baaqay lacag wax walba waa loogu baaqay xoolo nool waa loogu baaqay xarig xataa wiilka in xirnaado abadan waa loogu baaqay waxay soo istaageen wiilkii la dilay reerkoodii wiilkayaga nin baa dilay wax uu ka dambigu ka galabsadayna ma jirin wax kala oo maraya ma jirto waxaan rabnaa sidii diinta islaamku qabtay ee ahayd qofkii qof dila in asagana la qisaaso ay waxaan ahayn oo maraya ma jirto marka 5 sano ee waliba farmaajo uu joogay arintaas waxa la isku dayay oo laga biyadiilay wiilkii in la toogto waxa kale oo la isku dayay in arintaas lagu xaliyo dhaqankii iyo xeerkii Soomaaliyeed ee la oran jiray in mag la kala qaato maadaama wiilka wax dilay uu ku andacoonayo kama bay ahayd kas igamay ahayn anagu meesha maana joogin waa wixiina la yiri balse waxaan maanta ka yaabay markaan arkay inta aan taas wiilkii reerkood maadaama ay soo istaageen taas farmaajo waa kii ka baxay meesha hadduu meesha farmaajo ka baxay waxaa soo galay Xasan Sheekh wixii oo dhan wuu la wareegay hadduu la wareegay Xasan Sheekh arintiiba haddana loo bandhigay wuxuu go'aan ku gaaray marka inuu saxiixo saad la ogtihiin markii waxtaas oo kala la sameeyay waa in madaxweynuhu saxiixa uu saxiixay arintiina waxay ku soo afjarantay in wiilkii sidii uu xaq u sheegay oo ahaa wixii wax dila in asagana saas la yeelo sidii baa la yeelay oo had maalintiisii baa malaha intaasna malaha ma ahna intaas ku ekayd kii horena taariikhdii la dilay taas bay ugu ekayd noloshii adduunka kana maalintii la xukumay ee la yiri waa lagu fuliyay bas intaas ku ekayd si marka arintu waxa maqli jiray seexeega loo xigtaa ilkasa ku labad galaan labadii reer maadaama arintan dhex gashay mar haddii ninkan nin dilay oo asagiina la dilay sheekadu waa dhamaatay waa soo afjarantay diiniyan iyo si kale taba dawlad ahaanba waa soo afjarantay wax la isku sii daba galo oo la isku sii daba socdaa iska yar ay raali ahaad waxaan arkay marka naagaha waxa la yiri waa fidmo sidoodaba waa fidmo Allah ku rido wax alla wixii maanta Soomaaliya fidmo ku wada naaguhu sidoodaba waa fidmo waxay boqorka ku soo dhagsadeen ninkii wiilkii dhintay labadii waa dhinteen laakiin kii dambeeyay ee ahaa Caydiid waxay leeyihiin Caydiid waxa uu dhimanaya intaasoo nin oo reer hebel kooda meel ma ahana meel shama ah waa raaski isla dadkii reer hebel baa u dhimanaya reer hebelna magaalada hebla iyo hebla waa inay ka baxaan haddii ay taa sameeyeen waxaad arki doontaan niman badan oo midba meel laga soo saaro meydkooda
ma fahmaysaa علشان waa la dilayaa markaas markii la waayo qofkii inta la afduubto oo la soo dilo meelahaas laga helayaa macnaha waxay ku baaqayaan naagaha fidmada wadaa waxay ku baaqayaan in Soomaali dad oo soo daashay dagaal iyo rabsho iyo qaxar ka soo daashay haddana reer wada famil ah oo walaalo ah ay haddana si kala fadqalaleeyeen oo meel Ilaahay ku abuuray waxay ku leeyihiin magaalo heblaha ka baxaano ha aadan meeshii ka yimaadeen meeshii ay u dirayaanna ayagu waa joogaan waa fahamtay mideeda kale Soomaali waa ehel waa famil meel walba isla joogaan okay naagahaasi marka fidmo wadista mid baa halkan soo afdheer oo afdaloosha waxay leedahay in waxa la dilay hebel iyo hebel baa la dilay reer hebel baa u dhimanaya reer hebel kalena waa u dhimanayaan naagtaas marka waxaan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya iyo dadka wax garadka in la soo qabto ayada iyo inta la midka ah ee fidmada abuuraya waa 4 naagood oo la soo qarash soo qaatay oo la rabo si goboladaas dagaal uga bilowdo oo dagaal hor lagu hoobto haddana uga dhaco ya dagaal lagu hoobto Soomaali meel walba wada joogtaa meel famil gaar u leeyahay oo la leeyahay reer hebel kaliya jooga waa reeran jirin waa reeran waxba tayo iyo tiro midna lahayn ma jirto reer ku kooban hal koob ilaa magaalo yari waa hal koob ku koobani ma jirto dadka Soomaaliyeed Ilaahay baa bilaariyay miyi iyo magaalo wada joogaan waa wiil iyo abtigiis iyo gabar iyo habaryarteed meel la kala jira maanta Soomaali ma jirto okay naagaha marka raba inay dab horiyaan oo ugu baaqaya wiilasha yararka waliba dhalinyarada dadka waaweyn waa fahamsan yihiin wiilasha yararka ee dhalinyarada ah ee dagaaladii iyo inta ka dambeysay dhashay inay caqdad ku abuuraan oo wiilasha kale walaalahooda la joogo la ciyaarayo la joogo familka ay yihiin haddana raba inay dhibaateeyaan oo dilaan oo haddana ay meel ku qariyaan oo wax xun picture xun ka bixinaya ma ahan dad u naxaya Soomaali ahaan hadday rabaan qabiilka ay sheeganayaan maba ahanba waa dad doonaya in dadkan isku jabo oo dagaal hor leh ka bilowdo halkan okay naagahani waa naaga lacag la soo siiyay waxay doonaan ha ahaadeen meeshii doonaan ha ka yimaadeen waxay sheeganayaan Allah u naxariistee ay diid familkii uu ka soo jeeday ayay sheeganayaan balse waxaan leeyahay Ilaahayna kamayna baqin umada idin daawanaysana kamayna xishoon waxaan ugu baaqayaa marka dawladda naagahaas oo sharciga la hor keenaa waa qof kasta oo fidmo abuura waa in sharciga la hor keenaa oo waxa ayagoo apologize dhiibaya ama raali gelin ka bixinaya ay meediyaha soo istaagaan mar labaad laano fidmadan ay meediyaha la soo istaageen adduunku maanta waa wada meediyo wiilal yar oo aan waxaas ka warhaynin baa jira oo ay caqdad ku abuurayaan oo wiilasha kale walaalahooda ay isku dirayaan waa in marka la soo qabtaa naagahaas waa in sharciga la hor keenaa waa in haddana ayagoo sharciga la hor keeno ayagoo raali gelin bixinaya ayagoo la waan qaldanay ayagoo la waan ka xunnahay wixii aan samaynay Ilaahayna waxaan ka baryayaa wax alla wixii fidmo wada Soomaali way daashay oo dhibaato way ka daashay oo rafaad way ka daashay wax alla wixii fidmo nagu wada maanta wadanka Soomaaliyeed in Ilaahay iyaga kaliya ku kooba marka waxaan leeyahay reer qansax iyo reer qurac iyo reer baaster hore noo soo dhamaystay maanta no more dagaal iyo dad isku guubaabisiin dadkan waa dad wada dhashay waa dad walaalo ah waa dad ehela waa dad arxana uma baahnin dagaal iyo rabsho inaad saacadan aad soo bilowdo islaamahana sheegaya orda ilkihiina soo samaysta orda guryihiina ku foofo orda oo ilmihiini meel ku sheega oo u tago oo wax fahamsiyo wax bara intaad media soo aadeen oo lacag yar oo maalin idin haynaysa aad soo cunteen aad boorar yar ku soo qorateen marxuumka picturekiisi Ilaahay ka xishooda ummadana ka xishooda qabiilkii qashinka aad la wareegaysiin oo idinku soo buufiyay si aad lacag yar leedin siiyaan ilaa aniga ma aaminsani dadka aad ka soo jeedin dadka alleedihiin waan ka soo jeednaa ee aydiid uu ka dhashay
waxaas kuma dhaqmayaan mana laga yaabo inay dagaal iyo xasaasiyad kale abuuraan wixii way dhammaadeen maadaama wiilkii wiil dilay siduu doonaba ha ku dilo 5 sano xirnaa cayshkiisa 5 sano qornaa inuu sii noolaado maanta marka in la dhaho maanta marka in la dhaho maxaan ku yiraahdaa in reer hebel baan saan yeelaynaa iyo reer hebel baan saan yeelaynaa yaa kugu yiri reer hebel baan saan yeelaynaa dhaha yaa idinku yiri dadkii ka dambeeyay waxaasna waa in sharciga la keenaa ma ahan wax wanaagsan inaad meediyaha la soo istaagtiin waxyaabo dadka kala dilaya oo ummadda shacabka ku abuuraya xumaan iyo waxaan macno lahayn marka anigu waan baaqay dowladan waan u baaqay shacabka Soomaaliyeed waan u baaqay dhalinyarada waxaan leeyahay marka anigaan u weynahay dadkii dagaaladii bilowgoodii iyo dhamaad markii ay dhexdiisii iyo dadkii markaas ayagoo beebiyaala dagaalku ku dhacay oon anigu u weynahay waxaan idin leeyahay dhageysanin habrahan waa habra soo dhamaaday oo ruufyaaniina oo ilaahayna aan ka xishoonayn ka baqaynin adoomadiisana ixtiraamaynin kuwaas oo kale waa kuwa dariskooda cuna waa kuwa tuugada ay xoolaha dhaca hala soo qabto sharcigana hala horkeeno wax dagaalo aad qaadiina dhalinyaro iyo saacadaanayto wax dadkiina isku keendiraya iska ilaaliya wadanka idinka iskale wadanka dhalinyarada iskale habrahan ilkaha daloola afka daloola waxba ma sheegayaan wadanka Soomaaliya dhalinyarada iskale 80% ah 80% maanta annaka ah wadanka intaan anigu u weynahay iskale maanta inta kale waanay nagu leeyihiin iyo wax sheeg wayna ka korsanaa wixii cilmiya wixii aqliya wixii waana wixii ixtiraam waa laakiin wixii isu qaaya diraya far iyo sul intaas kaga qabano daaqada aan ka tuurno oo waliba inkaarna ugu darno waa salaamantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhiigayga aad u kacsan yahay maanta wallaahi oo bilaahi taala aad iyo aad ilaahay idinku soo gudday idin waliyakiis